Macallin Maxamed Cabdu Badida ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala gobolka Illinois ee dalka Mareykanka oo 3 sano uu ku jiray. Maxamed Cabdu Badida waa siyaasi u tartamay xilka madaxtinimo ee Kenya muddo 2 teeram ah inkasta oo uusan labaduba ku guuleysanin. Maxamed Cabdu Badida ayaa lagu xiray xabsigaasi ku yaala gobolka Illinois ee dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Madi Correctional Center sanadkii 2022 bishiisii 11 ee November 18-keedii. Maxamed Cabdu Badida ayaa waxaa xabsigaasi laga sii daayay sida faylalka xabsiga ku qoran 3 Abriil oo ah bishan hadda aynu ku guda jirno 2025. sidoo kale faylalka xabsiga waxa ay tilmaamayaan in 50 sano jirkaasi oo ku xukunaa 7 sano oo xabsi ah 4 sano ee xabsigiisa ka dhiman uu dibad joog ku qaadan doono ilaa iyo laga gaarayo taariikhda rasmiga ah ee uu xorta noqonayo ee 3 Abriil 2029. Maxamed Cabdu Badida ayaa horaan waxaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay in uu shakhsi uu markaasi ku sameeyay dabagal iyadoo dabagalkaasi uu ahaa mid sharci darro ah iyo sidoo kale cabsi gelin. waxaana maxkamadda mar kale ay ku xukuntay 5 sano kadib markii amar maxkamadda ka soo baxay uu jebiyey isla markaasina uu isla qofkii cabsi geliyey. Maxamed Cabdu Badida qoyskiisa gaar ahaan Aamina Liibaan oo ka mid ah 3 xaas ee uu qabo waxa ay sheegtay in haatan uu Dida ku sugan yahay guri uu ku leeyahay magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka. waxaana ay sheegtay in haatan uu diiradda saarayo Dida Organization oo ah urur isaga uu leeyahay in uu markaasi ka shaqeeyo.